وانجل غيد غشاديسي دحي نفقيدي قلبنا وقودين يا غيد سيدي كوبت أنا انتلكو كلام دبو جليسان وقد تكال إيون معدف وانقولاي بسم الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حقاني وحنون فيرتشوال أكاديمي. حنون فيرتشوال أكاديمي oo nooga barateen maadooyinka dugsiga sare ilaa jaamacad lagu barto aan ka soo gudbino oo siibada labaadka ardayda ku xusaysan iyo sidii aad soo dalbateen ahaa see loo diyaariyo case study aan kuna dooranay case study aan hore usoo diyaarinay oo kusoo diyaarinay xafiiska jijiga ee maamulka magaalada xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada jijiga iyo qaybtiisii organizational practice oo ah xiisad aan master ku qaadanay oo ah organizational structure design and the change culture and the change oo ahayd waxay almost soddon marka lahayd kaan markaa kanagu kasoo diyaarnay xafiiska dakhliga iyaan maanta qaybtiisii labaad yaan waxaan kasoo gudbinaynaa saad hore usoo ogtoonaydeen waxaan hadafkeenu ahaa inaan soo diyaarino taariikh historical background of Jijiga city as well as goorteel bilaabay city administration Ethiopia dhexdeeda revenue authorities goormaayuu sharciga helay serviyaasha qabtaan waa maxay all in all intaas qaybtii koowaad waan kusoo sheegnay ahayd haddana sidoo kale waxaan ahayd inaan kasoo diyaarino sharciga ilaa maanta lagu maamuliyay magaalada Jijiga goortee baa la abuuray iyo maayaradii soo maray magaalada qaybtaas waan kusoo gudbinay qaybtii koowaad siiba goorteebay ahayd maamul magaalada Jijiga maamul ahaan goorteebaa la sameeyey taan hore waan soo sheegnay sidoo kale waxaan focuskeenu ahaa aan horey usoo saarnay aan horey usoo sheegnay qaybtan maamulka magaalada Jijiga saan hore ogsoonahay wuxuu ka kooban yahay xafiisyo badan saas ay kamid tahay xafiiska maamulka magaalada Jijiga dakhligan uu kamid yahay wuxuu u qabtaa baaxadiisa authority-giisu waa maxay wuxuu u fadhiyaa taan hore waan soo sheegnay sidoo kale waxaan hore usoo sheegnay input iyo throughput iyo output macnaha xafiiska dakhliga wuxuu input sameeyaa throughput-kiisu muxuu yahay output soo saarayna waa maxay inta sameeyay environmental factor-ka meesha jira see u xalaya taana soo fiirinay marka maanta waa qaybtan u dambeysay waxaan aan fiirin doonaa oo ahayd hadafka koowaad ee meesha aan u soconay buu ahaa dhaqanka ka jira xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Jijiga waa sidee miyuu jira isbedel aduu jiray see loo maareeyay see uu yahay isbedelkaasi as well as transformational miyuu jira transformationkaas aduu jiro ku noocma weeyaan transformation ka jiray sidoo kale organizational conflict power and the politics marka xagan aan leenahay organizational conflict macnaha waa good thing inuu meel xafiis ama dad bini'aadmaha waxa lagu yaqaan markuu rumor u keeno markuu guuxo inuu kaga duwan yahay xawayaanka marka conflict aduu jiro conflictkaas seeba loo maareeyaa seeburiya loo xaliyaa conflictkaasi ma mid waxa waaqica iyo policy standardka ku xusan baa taasna si qodo dheer iyaan fiirinayna anakoonan hadafkeenu ahay inaan siyaasad iyo meelaha wax ka dhex jira aanan faragelinin balse taa ka hor bal waxaan aan darsigii hore kusoo baranay aan in yar dul orodno waxaan soo niribay ahayd Jijiga waxa asaaskeedu uu ahaa qarnigii 18aad iyo ka horeysay laakiin anaka focuskeenu wuxuu yahay qaybtan 19aad goorta uu modern administration uu magaalada soo gaaray sidoo markaa qarnigii 18aad dadkii haliyey badan oo u soo halgamay oo wadanka u soo dadaalay baa jiray
kuwaasoo kamida garaad wiilwaal dadka aanka meesha kasoo muuqday waa garaad wiilwaal oo isaguna ah kii magaalada Jigjiga asaaskeeda salka u dhigay iyo asweelas wuxuu ahaa fighterkii dagaalyahan uu ahaa sidoo kale waxaan la xusayn in la xusay mudnaan tahay meesha ka jiray waa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo isna nin geesiya oo laba dhinac kala dagaalamay mid Talyaaniga Ingiriiska mid Talyaaniga ayadano mid Talyaaniga dhinac kala dagaalamay midna Ingiriiska dhinac kala dagaalamay dhinacna Ethiopia kala Abyssinia kala dagaalamay waxa marka isaga iyo daraawiishtiisuna waxa kula haayeen xulufo dheer kula haayeen meesha aaga influence badan baa ka jiray marka all in all anaku waa hadafkeenu wuxuu ahaa waxaanu gudubnay qarnigii 19aad goortuu soo gaaray maamulka suuban ee magaalada Jigjiga marka sidan kan meeshaan ku aragnay kan waxa weeyaan waa garaad wiilwaal waa garaad xirsi garaad faarax garaad xirsi okay waxaan idin ahayd colonization and political disorder ka jira magaalada Suuy ahaa macnaha qarnigii 19aad kadib haddaan xusayno oo geesiyaashii iyo haliyaashii Soomaalidu ay ka horreeyeen qarnigii 19aad laakiin wax dhaqdhaqaaq miyuu jiray uu jiray dhaqdhaqaaq macnaha u muuqda wax dawlad dhaqdhaqaaq marka aan leenahay way jireen mar walba bil walba maalin walba laga yaabaa in dhacdooyin ay dhici jireen laakiin wax define political objective yeesheen ay si fiican isu abaabuleen weerar xoogan ku soo qaaday Hayle Selassie aska iyo dawladdiisii waxa only jira 1948kii dhaqdhaqaaqii gari ay sameeyeen oo ku soo qaadeen Hayle Selassie ay kaga saareen aaga kaga safeeyeen sidoo kale isla barigaas waxa hadana jiray 1948 daraawiishtii inuu markuu sayidku ka dhintay ka bacdi baasana iyo boqorka Ajuraan la oran jiray oo la diilay isku soo habeeyay isku soo ururiyay iyo isna weerar ku soo qaaday marka taas maxay kaliftay in ay dib u gurtaan askarta Hayle Selassie oo ay magaalada ka degaan meelaha hilltop side meelaha sheed dheer ama buurooyinka korkooda in ay degaan magaalada hoos ay soo fiiriyaan iyo markaa ku kaliftay ilaa imkaan ay degan yihiin oo kamida garab case tullu guuleed inkastoo aan feeni jinacsani meelaha markaa korka laga soo fiirinayay buurleyda iyo ku sugnaadeen marka haddana wuxuu leeyahay inkastoo ay dagaalka Anglo-Abyssinia ay mar walba ay soo uskuunaysanayaan ay jireen laakiin Jigjiga main ahaan kaliya meel commercial center laakiin waxay noqotay meel laga control gareeya aaga Soomaalidaas ay ku nooshahay sidoo kale waxaan soo fiirinay ahayd city administration law goorma loo sameeyay marka city administration law waxa la soo saaray federal ahaan March 2005 iyo National Urban Development Policy loo soo saaray wadanka oo qayb kana uu saldhig u yahay in ay right of city residents to manage their local affairs magaalo walba inay iskeed isu maamusho oo policy-gana kiyo oo waliba regional constitution ka garab ku haya ayaa la soo saaray marka maxaa la aasaasay maamulka magaalada Jigjiga ayaa la aasaasay maamulka magaalada Jigjiga oo loo aasaasay visionkiisa in ay to see Jigjiga city become livable vibrant magaalo nolol ku habboon ay service center ay tahay investmentradana lagu promote gareeyo ama lagu dhiirigeliyo visionkiisu waa taas missionkiisuna wuxuu horesan soo sheegnay Jigjiga meel nolol ku habboon aad u horumartay daris wanaag iyo dhaqaale fiican leh oo bilo fiican leh kuna habboon businesska iyo meel xarun lagu maamuli karaa as well as service fiican laga helaa iyo industry iyo transportation hub ama xudun ay u noqoto iyo markaa loo aasaasay maamulka magaalada Jigjiga xafiiskiisana waa kan meesha ku muuqda
sidoo kale waxaan soo xusnay maayaradii magaalada ka soo talin jiray maayarka koowaad ee la xusi karo la taaban karo wuxuu ahaa nin Yemeni Ethiopian ahaan jiray oo magaciisa la oran jiray Xaaji Cabdullah Taaha ama Xaaji Cabdullaahi Taahir oo 1969 oo laga soo magacaabay central government oo isna markaa wadanka waardeyn jiray isagoo sida goobaabada intuu wadanka intuu askartiisa ugu wareejiyay ka waardeyn jiray ardaraawishta haddana waxaa jiray 1977 في توراري تكل حواريات تكل ماريا من الدجري أو حريد أما إيه اللي هاي البقر هاي الثلاثة يا الله سو مقعب إنه سيتي جوفرنر كان قضاء وطنكا نكن نوحى لحظة إنه يهي نكي دوكسيان سرا يمكن من تذكر نكي دسي قيبة المدردها ما هي قوة سجيدها كنيكي دسين وها إسلام وها جري نيل الصاكر صدق أو واحد صاكر صدق نور حاجة نصور كميدي كذا كحسن من كاس الروش كاس هذا يا صاكر صدق مركو الصاكر صدق روش كانوا ودك روش كانوا جي حاجة ساعة تعليم تيسن أو صابر طي مركا وحلا بسيها هن كان إنه وها نكي صاقري constitution كأما دستور كتوب يوهرين اسمه 1931 كصوب حاجة نك قرين صقها sidoo kale ninkan wuxuu ahaa nin xagga diinta ku yarxal dheer oo markaa wuxuu sameeyay markuu dugsiga u dhisay wuxuu jeedadiisa hadafkiisa uu ahaa in uu Soomaalida qaangaarka ay noqotay inuu u bedelo diintooda kristaanka inuu u bedelo markuu dastuurka soo qorayay ninkan wuxuu ku xisay baahayd Soomaalidu inaynan dad la aamini karin ayna ahayn oo non believer ay yihiin ay Soomaali Arabina yihiin taasna waxa ku kaliftay maadaama ay toos u dagaalami jireen oo dagaal xoogan labada qabay maamulkiisa iyo Soomaalida ka dhaxeeyay sidoo kale waxaan soo xusnay ahayd ninkan 1960kii Girmama waa in la oran jiray in agsaaba laga soo eriyay markii laga soo ganaaxay oo la yiri orod oo jijiga tag oo ka noqo city governor ka jijiga noqo marka isna xanaaq maadaama uu yimid wuxuu kasbaday Soomaalidii meesha taganayd buu kasbaday marka dad badan oo la dildili rabayna oo askar daraawishi iyo qaar kale ku jireenba wuu iska fasaxay iska cafiyay taana marka maxaa kaliftay in uu Soomaalidu ay baaha badan ururiso oo dhaqaale badan inta loo ururiyo markaas uu tiibu kula tagay wuxuu kula xaajooday حلسلاسة كورتيسي وحلسلاسة كل حاجة جوده وحير دولتيسي كل حاجة جوده وحيري دس كان وادد أباهن هرمر إلى قالة أو كان ترسن ودن كا حقوق يحقق ذي هالان وحاسكو دو تشري لكن لا جماعة قبلين ما كان أنا لا أقبل وين أنت كان خرج في صور يسقي ولكن أنتو كوا أبيي يسقي ولكن يا waxay sameeyeen inqilaabkii ugu horeeyay bay boqorxayda islaamka ku sameeyeen markay isaga ku sameeyeen laakiin way u suurtoobi weyday marka waa la qabtay markii la qabtay ayaa si publicly ba marka loo dildilay 1961 maadaama marka isagu afii Soomaalidii meeshii bedelkiisii inuu soo galayna qaybtii koowaad baan soo sheegnay qaybtii koowaad oo kale hadana waxaan ku soo fudnay baahayd waqtigan xaadirka maayirka magaalada waa إنجنير شافي أحمد معلن مركا حفيزكو حوليه إنه أصل إنه سلف أدمنستر إنه إسكي يسمى مولو أو حفيز والبقو دولي أنا وماشي وكتشرو لقبل من كونسل سبيكر إلا حفيز كدخلقة معناها كونسل سبيكر duty matters office city service manager user and export office mayor special advisor public relations Somali prosperity office Deputy City Service Manager of Engineering Sector, Trade and Transportation Office, Deputy City Service Manager of Social Sector, Agricultural Livestock and Environmental Office, Administration Security Office, Health Office, Education Office, Social and Labor Office, Finance and Economic Development Office, Beautification and Sanitation Agency, Job Creation and Food Security Agency, Justice Office, Complaint Commission, Women and the Children Office iyo aakhirtaanka hadafkeenu ahaa inaan soo samayno oo ahaa Revenue Office iyo korka iyo gudaha uu ka leeyahay uuna korka ka maamulaa Engineer Shafi Ahmed Macalin waxaan ka soo dheehanay website-ka Jijiga City Administration
كان أركتان ومقالد okay then waxaan aan soo gaarnay inaanu xafiiska maamulka magaalada Jigjiga xafiiska dakhliga in la aasaasay oo hadafkii lagu aasaasay bayaankii lagu aasaasay uu yahay bayaanka loo yaqaan Soddon 2013 kaas oo targetka la saarayo in uu dakhli ururiyo iyo inuu taariifka jaangooyo marka taasina waxa ay hawlig u ahayd maadaama decentralization uu meesha qayb walba uu ka jiray ay qayb walba inuu okay kana aragtaan marka waa magaaladii Jigjiga oo korta drone laga soo sawiray waqtigan xaadirka biladeed sidoo ay tahay then waxaan aan hore soo sheegnay ahayd roolka uu u fadhiyay wuxuu yahay xafiiska dakhliga maamulka magaalada Jigjiga inuu wakiil uga noqdo dawladda inuu wakiil dawladda uga noqdo oo kaasna uu maareeyo dakhliga oo sidoo kale uu soo ururiyo canshuuraadka wadanka oo sidoo kalena uu darso ama assessment ka sameeyo for residents of Jigjiga city and its surrounding area roolkiisu waa inta serviceka uu bixiyay waa revenue soo ururiya revenue assessment sameeya revenue enforcement uu ganaxa permit iyo registration ka yusiya information technology qayb IT ayuu leeyahay compliance and audit uu sameeya human resource oo soo kordhinta awooddu ayuu leeyahay finance iyo archive iyo qaar kale uu leeyahay horey soo sheegnay waxaan horey aan soo sheegnay baan leeyahay value organizational value xafiiska dakhligani uu create sameeyay muxuu yahay marka organizational value xafiiska dakhligani soo saaray wax weeyaan its ability to generate revenue wuxuu wadanka u soo saaraa dakhli maadaama wadanka u soo saaro wuxuu value soo create garay ama uu keenayo maamulkan imika ka jira waxa weeyaan inuu dakhli u soo ururiyo sidoo kale wuxuu sameeyaa dakhligaas wuxuu u soo ururiyaa isaga oo si hufan ku soo ururiyo dakhliga iyo canshuuraadka iyo haddana financial obligationada looga baahan yahay dan uu meesha uu ka soo baxo marka revenue authority waxaa loo yaqaanaa inuu garab istaag u muujiyo infrastructure development kale meesha ka socda public transportation kana uu si dhiirigeliyo maadaama xusub revenue marka meesha Kenya ogtahay revenue meesha haduu keeno infrastructure ay wadanka u baahan yihiin buu ay magaaladu u baahan tahay meesha ay laga dhisayaa public transportation ka laga sameeyaa health care facility ayaa lagu dhisayaa marka kaas kaliya tamoona noqonin wuxuu marka all in all uu haldhig u yahay inuu nolosha dadka ku dhaqan Jigjiga iyo surrounding area-geeda uu wanaajiyo sidoo kalena uu soo jiito investorada ay wadanka u baahan yihiin taas weeyaan marka value uu soo kordhinayo marka value uu soo kordhinayo marka aan leenahay waxa loola jeedaa sidoo kale adana value wuxuu soo kordhiyaa dawladda isaga iyo kii oo kobcinaya dakhligan ay soo xareynayaan sidoo kale u spend gareynaya dakhligii ay soo ururiyeen ay ugu spend gareynayaan san hore u soo sheegnay meelaha horumarinta mashaariicda looga baahan yahay ku spend gareynaya oo u garab istaagaya economical growth ay u baahan tahay magaaladu iyo dawladda taageero u yahay taasina waxay taageero ay ugu noqonaysaa inuu dhaxdhaxaad u noqdo uu isku xiro dawladda iyo bulshada iyo meel muhiima role muhiima uu ka ciyaaraa xafiiska dakhligani marka xafiiska dakhligani value create uu sameeyo waxa loola jeedaa inuu dhaxdhaxaad u yahay dawladda iyo shacabka uu isku xiro oo isaga la'aantii dakhliina aanu soo xiroonin shacabkuna uunan helaynin wax ay u bahnayn marka aan summarize garayno waxaan oran karnaa wuxuu value soo kordhiyay waxa ka mid tahay wuxuu hufan uu fanaan geliyaa dakhli ururinta wuxuu cadcadaan iyo transfer cadcadaan
financial management بويو عضان ماليات بويو ماشي موجية improve وناجية public service أو public sector وناجية economical development أو كنا compliance مركب شرع فلنتين قيبت شرع فلنتين تانا مركا دولة ميل في عمبو وجرا بكرجنت هاي then وحنا رأي عن صوش هجنة هاي input دخل حفيزك الدخل وinput كولية هاي throughput كوسمية output بصوص هراء input كمشي قليني وحا كمديهين شقالة تيالة أو لترين قريي إيو wixii ay ku qaban lahaayeen hawlihii ay financial ama resourcega ay hawsha ku qaban lahaayeen iyo technologiyada ay meesha ku samaysan lahaayeen as well as xog meel laga soo suuqa laga soo ururiyay intaas waa inputkii iyo kayuu yahay throughputka markaa maxaa sameeyay waxaan ayay process sameynayaan seera loo process garan collection and record taxpayer information ka la soo ururin assessment and calculate balasamin tax own balasamin issue tax bill baa dadkii loo dirayaa ka bacdi collecting tax revenue baa la soo ururinaya handling taxpayer in dadkii cabasha haday meesha ka jirtana cabasha waa la maareynaya taas waa throughput marka maxaa meesha laga filayaa in ay ka helaan ama output ka soo saaraan dakhli la soo ururiyay iyo meesha yaa ka soo baxaya financial report oo meesha waa inuu ka soo baxaa oo lacagtii la soo ururiyay oo reportkiisii meesha laga rabaa dadkii cabashada lahaana markaa qoraal ahaan intaas qof baa intaan waa la xaliyay yaa laga rabaa markaa waa output la soo saaray inay markaa nidaamkan uu sax ku noqdo waxa jira caqabado environmental factor jira factoradaas in internal iyo external markaa way noqon karaan sababadana environmental factor marka la leeyahay waa external factor yaa loola jeedaa external factor kan markaa wuxuu ka mid yahay nolol maalmeedka dadka meesha ku suusan lacagta laga soo ururinayo dakhligan waasii waa in la darisaa maadaama lacagta la jaangoonayo ee waxaan nidaamka la socdaa waa in iyaga lacagta laga soo qaado haddayna iyaga awoodi karin markaa meeshii waa khaladaad ba ka imanaya marka koobaad economical condition in the city waa in la darsaa mar walba oo assessment la sameeyo before waa in taal soo darsaa government regulation and the laws sharcigu mar walba wuu isbedelaa sharciga isbedelaya mar walba waa in la jaan qaadaa oo la rivergareeyaa marka sharcigan waxay laan process kan uu affect gareynaya way ka dhigan tahay maxaa hadana jira technological advancement waqtigan xaadirka waxa imka lagu shaqeeyay waa technology taasoo imka aan u guuda garin sida maamulka magaalada Sabah oo kale waxa lagu shaqeeyaa data warehouse baa jira e-tax baa jira sigtax baa jira way badan yihiin marka waxa lagu soo isticmaalay marka koobaad electronic e-payment iyo e-filing baa dana jira iskood bay dadku soo xilqaamayaan oo e-filing soo sameeyaan iyaka iskood bay soo xilqaamayaan iyakii marka soo pengareeyay soo cashuurtii soo shubaya marka taasi marka waxa ay fududeynaysaa transparency dadkii cabsida ay ka qabeen dadkii u dhaxeeyay boobayay ama waxaan jirin iska dhadhicinayo dhaba meesha ka baxaya marka technology in either xafiiska shaqaalaha la kobciyo at the same times shacabkana la baro ya marka technology marka taasina mar walba technology advancement yimaado nidaamka marka uu afis gareynaya competition with other review office مثلا waxa jira xafiisyo kale oo dakhliga qaada jira مثلا xafiiskan gaadiidka iyo ganacsiga uu qaadaa xafiiskan koortiga uu qaadaa maxkamadu ay qaadaan marka ku aasoo dhan sida aan meesha aan ku aragnay markaan soo baragnay xafiiska maamulka magaalada Addis Ababa xafiiska maamulka magaalada Jijjiga xafiiska maamulka magaalada Jijjiga dakhliyaashaas looma soo report gareeyo loona soo sheegona xafiiska maamulka Addis Ababa magaalada Addis Ababa nin walba dakhliga qaaday dakhligiisa wuxuu soo report gareeyay xafiiskan maamulka magaalada Addis Ababa dakhliga markaas qorshahooda ku darsadaan bisha intaas soo xarana markay leeyihiin directly in ay soo xareeyaan plus indirectly xabshada kale ay soo xareeyaan marka xabshada kale qorshahooda intaas sanadkan u soo xaran doona dakhliga ay qabsadaan taas laakiin way ka maqan tahay maamulka magaalada Jijjiga marka waxaan
all in all markii aan documentyaasha inoo soo gudbiyeen meesha xaaladii aan fiirinay waxaan ka soo ogaanay oo laga wada sameeyahay Ethiopia oo dhan waa dhibaatooyinkan xaggan hoos ku xusan kaas oo ah small tax base taxiga la qaadayo matalan waxaad arki karaa meel laga qaadayo rent house rent laga qaadayo 20 qarsh 20 qarsh maanta maxay goysaa waxba ma goyso right marka base taxi oo aad u yar taas waa loo wada sameeyaa uu jira si gaar laakiin xafiiska maamulka magaalada Jigjiga waxa uu haysta poor documentation macnaha oo ah arkiivyadii oon iska yaraatay fayladii oo dhulka la dhigayo meel shelfiyaashan uga qaadaynin at same time nidaamkii la nidaamiyay filing system laftirkiisu khaladaad baa ku jira aan ku aragnay kaas markaa poor documentation kaas xagaasan keenay incomplete tax coverage waa Ethiopia dhan waa loo wada sameeyahay macnaha shaqaalana inay shaqaaleystaan ma rabaan dakhliina ururiyaan bay rabaan shaqaalaha markaa suuq yare oo waxaan ku iraadaa Sheekh Nuur Ciise dukaan yaro imkada maanta laga furay hadduu qabaleegu uu rabo oo lacag la siin waayo ninka qabaleegaas uu soo gudbinaya oo loo dukaan baa meesha laga furay ninkii waa la soo riport kareenaya ninkii waa meesha laga xirayaa ganacsi doona baa la oranayaa laga yaabo inuu sanad iyo 2 sanad sii shaqeystay marka waa awood ku filan oo all gaadhsiisa meel baaxadda oo wadanka magaalada oo wada gaadhsiisay ma haystaan taasna marka siyaabihii laga xalin lahaana gadaal baan ka sheegi doonaa difficulties with tax assessment marka la sameeyo tan Ethiopia dhan baa laga wada sameeyay wax oo assessment procedure are not based on standard marka assessment marka la sameeyo badana waxa lagu assessment gareeyay waxa weeyaan waa lacagtii ay maanta soo gadaan laba dukaan isku ag yaala oo isku qaab oo capitalkooda oo isku mid ah ma laba dukaan oo laba goob isku kala yaala oo capitalkooda midna uu 100,000 yahay kalena 100,000 yahay kan adu iyo maxaan idin ku yiraahdaa maalinkii adu iyo 10,000 oo kaasina iyo maxaan ku yiraahdaa 500 iyo 10,000 iyo 5,000 dakhligii ay soo xareeyeen lacagtaas dakhligii ay sameysay oo marka meeshii la focus gareynaya laakiin time wise per day bukan maxuu soo xareynaya 10,000 marka lacagtiisu samada ay tigsa ka kale per day maan walba muxuu soo xareynaya waa 500 iyo cashuurtii laga saayay laga gooynaya marka 500 marka taasi uma dhigmayso lacagtii saxda ahayd uu helay because maalin walba alaabtu beddelaya kan 10,000 wiina 10,000 keenaya ama laga yaabaa ka ayar 500 maalin walba iibinaya inuu suuqan kacay hoosu ama suuq price fluctuation ama deflation kan sameynaya inay isaga ay saameynayeen oo wixiisu ay growth slogan ama ayar uu socdo oo marka kama fiicnaan karo ninkan maalin walba 10,000 daily sale-kiisa uu yahay oo kaasi dakhli badan uu ka heli karo saasna marka way dhici kartaa waqtigan xaadirkana most factor marka meeshan ka jira waxa weeyaan waa inflation ka wadanka ka jira weeyaan inflation marka muxuu sababi karaa ninkan 500 maalin daily iibinaya dukaankiisa oo camiran yahay ka kale isla dukaankiisa daily 10,000 iibinayay alaabtii uu ku soo siistay maxaan ku yiraahdaa 500,000 iyo kaasi alaabta ku soo siistay 500,000 inay isu awoodi waayaan baa dhici kara ay kan maalinkii 500 qarshi ku soo iibinayay ay 10 jibaar ka badan karto kan kale maadaama waqti hore soo iibsaday suuqiisu ayar buu soo yahay dakhliga laga qaadayayna maadaama lagu saleeyay 500 hoos bay u dhacaysaa marka factor marka aynkaas ayaa wadanka oo dhan haysta oo u baahan in detail analyze marka stock market baa la sameeyay stock market ka tala isku xiro waxyaalo badan oo soo socda jira insha Allah takala labaad meeshan in tax si sax loo asas garay ka jirtay waxa weeyaan
system heavy rely on judgment systemka wuxuu badanaa lagu soo sameeyay in kasta markaa waxaa la sameeyay intan koobaad la yareeyo iyaa waxaa la diyaariyay shaqaalaha la diraa marka shaqaalaha daily sale ka la soo goynaya daily sale ka cabasho ka keeno shaqaalaha tagaya meesha dukaankiisa tagay boqorka tagay soo fiirinayaan boqorka marka tagaan waxa la soo fiirinayaa shaqaalaha meesha shaqaale mu leeyahay musamala qaabku waxa uu yaalo maxaan ku raadayay dukaankiisu waa sidee dukaan lacag badan soo saari karaa mid kala lacagtan uu sheegay macquul baa muu keeni karaa laga yaabaa markuu daily sale maanta waxaan iibiyaa uu leeyahay 500 imisa kiilo sonkor maalinka iibisa tirado gabdho yiraahdo almost labadaas marka uu isjiiriyaan xaggaas marka ayaa waxyaalo aankaas marka ayaa lagu soo minimize gareeyaa tan koobaad factor koobaad ee meesha ka jirta laakiin tani laftirkeeda waxaa jira dad wadanka u dhashay oo bilicda wadankana raba oo dukaankii ay meeshii ay ka furin lahaayeen xaafadoodii gudaheeda ah oo aad u qurxiyaan badanaa gabdhaha iyo dhalinyarada imka soo badan yihiin dukaankii iska qurxinayaan meeshii waxba suuqna kama jiro laakiin meeshu waa wada muraayad si fiican way qurux badan tahay haddii si dhab loo fiiriyo lacag dukaanka kale ka soo horjeeda qoshka ayaa kal in kan badan oo ka maan walba laakiin kan uu iska wanaajiyay uu iska qurxiyo taasna wuxuu sameeyay maadaama meeshii wadankiisa uu ku dhashay uu inuu amal ka dhigto uu rabo iyo meel qurux badan iska dhaxfarsanaya dadkii marka shaqaalaha xafiiska dakhliga oo imanaya marka meeshii ay kan meeshan waa meel horay marta intaasoo waxaan ku raadayay kunkan ama milyan ayaa meeshii ku xigta taasina marka waa khaladaad meesha ka jira oo Ethiopia dhan u sameeyeen taxpayer are treated inconsistently marka tan maxay marka keensanaysaa maadaama si sax ah loo qiimeynaynin dadkii taxpayeradii wadankii meesha ka jiray yaa marka si sax ah in si cadaalad in loo macaamilo yaa meeshii khaladaad ka imanaya lack of categorization of taxpayer grade in grade A B C loo kala cayimo taasina khalad ka yimo khaladkan inta ugu badan ay qaadanayaan dadkan dakhli bixiyaasha oo macnaha haddii la yiraahdo waad ka gudubto category B baad gashay oo arka inuu milyan bixinayo run laakiin ay ka yar badan tahay oo xaggan si laakiin waxa ku xusan faa'iidooyin kale uu helayaa faa'iidadaas kamida midna inta la yimaado waxaan jirin lama saari karayo boog buu yeelanayaa maalin walba inta wuxuu iibiyeen uu qoranayaa wuxuu bixiyeen uu qoranayaa taas marka kala xaajoonaya dawladda oranayaan waxaan gaday waatan buugaygiina waa la socday marka categorization ABC in la sameeyo laftirkeeda nin waa dakhli bixiyaasha cabsida ka qabo buu qaado dadka dukaan ku tiraadid buugaas seen u qaata anu maxaana xuma iibiyo waxaas bilaabaya moogtay laakiin inta loo yimaado hadii nasiibka lagu dhufay nasiibkaas nabarka jibinta isagu ma garanayo okay collection inefficiency baa meesha ka jira macnaha dakhligan la soo ururinayo laftirkeeda efficiency darriga meesha ka foqada macnaha nidaam darriga meesha ka jirta waxaad arki dakhligii oo wadankii dakhligii inuu u baahan yahay oo dadkii qaad war hooye wariga qaad war maxayda oo xafiiskii laftirkiisii uunan xafiiska ama xafiisyaashan ka sareeya ee budgetka u sideynaya aynan ku talagelaynin bal kuraasiyo inta dadka loo sameeyo dakhliga xafiiska inta loo kordhiyo xafiisku ilaa waxa xafiis dakhliga noo keenayay mushaaraadkeeni iyo horumarintii mashaariicdeeni ay ku fadhiyay xafiiskan inta focus ka saarno dadka noo imanaya bal aan wanaajin oo meel fariistaan sida dibadaha Yurubta ka jiro kale waxa jira free water bay leeyihiin oo waliba taab maxaan ku raadayay kan pastoralize wadankan caagadaha lagu keeno freely way tagaan ay soo qaadeen iska cabayaan meel fiican bay fadhiisanayaan qaboojiye meel ay wada leeyihiin sanin qaad war daqiiqa qaad warkan iga qaad waxaas markaa taasina waa khaladaadka aan ka simanahay Ethiopia ahaan dhamaanba meesha walba xafiis walba daqiiqa ka jira takala ka jirta wax weeyaan payment procedure laftirkiisu maadaama meesha qaad ay ka jirtay aan saan hore soo sheegnay ma loo sameeyo electronic ninkii xaafada iska fadhiya marka la ogeysiyo dadka cashuurta waa intaas soo bixi isna dhag mobilkiisa inuu ku soo bixiyo all right nidaamkan imka la soo sameeynaya already way jirtaa
hase jirtay isaga laftirkiisana fahan darri oo ma dadka aan weli aan si fiican u fahansanayn ama tacliin laftirkeeda ay u baahan tahay taasna markaa khaladaad baa meeshaana ka jira oo qaybta antiska aan kasoo diyaarinayo waa qaybta lack of enforcement mechanism enforcement marka qofka la ganaaxay laftirkiisana xaggana khaladaad baa ka jirta oo Ethiopia loo siman yahay marka aad qofkii aad ku qabato marka hore sharciga soo qoray qofka hadduu uu vaaska jari waayo waa 100,000 ganaaxiisu ninkii vaaska jarin baa markaa soo qabanaya marka soo qabto muxuu oranaya aniga waxa la ganaaxay maadaama reehba lahay ninka soo ganaaxayna waa reehba marka taas waa khaladaad meesha meel walba ka jirta aniga si khaldan baa la fiirinaya marka hore markuu muuska ka hagaajiyo at the same time kuwan ganaaxay laftirkiisu markuu wuxuu arkayaa nin la fasaxay ninka kale waxa uu fasaxay maadaama uu eelkaaga yahay waa ninka kale ku haysta aniga sakan eelkayga maanta quraatan soo aduu ninka soo qabtay ayuu ahaa waxyaalaha ankaasna markaa way jiraan khaladaad ankaasna way kuma resource in tax administration xafiiska laftirkiisa ma awoodo inuu shaqaale tayale oo inuu kaansado takoobaadka lack of enforcement mechanism xataa waxaan ka iloobay weli ilaa imka ma arag ilaa xafiiska waxaan joogaa maamulka magaalada Addis qayb sharci fulin nin lawyer ah oo xafiisku uu leeyahay lawyer right soo qabsado xafiisku lawyer uu weli shaqaaleeyay weli ma arag marka taana waa khaladaadka meel walba ka jira weak human resource in tax administration ma taxiga maamulka taxiga la sameeyo laftirkiisa shaqaale tayal oo ku filan ma shaqaaleysiin ama dad shaqaaleysiisaan khibradooda ma dhowraan macnaha waxaan ka imiday iyadoo 5,000 qaadanaya bacdeen 7 bilood markaa in wuxuu noqday 5,000 bay qaadanayaan qof isku khibrad maamulka magaalada Jijjiga oo Addis ka shaqeeya maamulka magaalada Jijjiga ayna wuxuu qaataa min 17,000 20,000 18,000 oo labadii sanaba loo skeelka iskoolkooda la dilacsiinayo oo training uu garab joogo taa markaa kuma arag xaggaana khaladaad weyn ay shaqaaluhu ku dhuban yihiin baa xaggaana ka jira oo la aaminsan yahay kan aduu shaqaalaha dakhliga uu yahay magaaladu boobaya oo magaaladu dhinac kaga tirsan yahay 5,000 baa ku filan wrong revenue estimation at first stage tan oo saan hore soo sheegay lack of awareness of taxpayer no kasaan hore soo sheegay outdated tariff rate kana waxa ilaa imka taariifka wadanka uu ku shaqeeyo wax weeyaan taariif la soo jaangooyay 40 sano ka hor taasna markaa khaladaadkii saan hore sheegay matalan canshuurta laga qaado guri qabale aduu uu yahay 20 30 40 uu bixiyaa 100 qarshi baa xitaa ma gaar 100 qarshi muxuu maanta gooynaya marka nidaamka laftirkiisa waa jaangooyintii la soo saaray waxa kamid tahay jaangooyin laga soo saaray 40 sano ka hor iyo wali uu shaqeynaya taasna khaladaad oo Ethiopia dhow sababta ama jirta lack of service charge rate and competition methodology kana wasaan hore soo sheegay waxaan book ka soo qaadanay probleman oo si fiican noogu soo qaaxay waxa weeyaan book la yiraahdo governance and the program ama ya si fiican noogu soo qaaxay performance evaluation and the goal then marka maxaan problemana saday jireen focuskeeni ku xigay wuxuu ahaa inaan case ka studygaan si fiican u qeexno bal performance evaluation kan iyo goalka meesha uu yaalo waa sidii xafiisku goal hindisu yeelanayaa yool buu leeyahay xafiisku goalkaas seeb uu dhaqangelintiisaas uu cabiraa ama u maareeyaa then waxaan aan identify garaynay performance matrix iyo targetka loo baahan yahay performance matrix iyo target for evaluation ka marka koowaad aan identify garaynay the goal and the standard used by organization to evaluate performance aligned with mission then haddana waxaan sii cabirnay goal iyo performance gani hadafkii iyo hindisihii iyo yoolkii uu lahaa xafiiska maamulka magaalada Jijjiga ee dakhliga miyuu waafaqsan yahay mise uu garamarsan yahay ma uu waafaqsan yahay haddii uu waafaqsan yahay ma mid si fiican loo dabad gareeyaa
واسي انت سو دم marka taana waan soo darisnay all in all markaan aan soo sameynay waxaan aan iskugu keenay xafiiskan performance evaluation the goalkiisa wuxuu ku cabiraa saddex shay ku cabiraa taas oo control ah mid labaad waa innovation saddexaadna waa efficiency that's to mean performance is measured with strategic goal and objectives saddexdaas markaa focus karaya taas oo iyadoo u aaneynaysa hadafkii iyo yoolkii uu xafiiska maamulka magaalada jiyo uu ahaa in uu magaalo lagu wada nool yahay oo aad u bil qurxoon oo nolol wanaagsan aniga taan hore soo sheegnay inuu hadafkaas yoolkaas uu target gareynayo then standard kan markaa waxaan ku cabirnay anakoo long term strategic direction ka wadanka uu leeyahay xafiiska uu leeyahay cabirayna then marka aanu leenahay control innovation and efficiency marka maxaan uga jeednay control waxaan uga jeednay organization wuxuu target gareynayaa ama uu focus gareynayaa in uu kobciyo tax base ka waa khaladkii koowaad markii aan ka problemka aan meesha soo sheegnay talabaad uu improve tax coverage ka uu improve gareeyo assess tax accuracy gan uu focus saaro iyo maximize collection efficiency inuu sameeyo taas waa goalkii indicatoradii ayaan markaa ayuu kan waa inuu qaybtan waa inuu afartan shay meesha sheegnay waa inuu control gareeyo oo gacanta ku hayaa sidoo kale waa inuu innovate gareeyaa innovate wuxuu sameynayaa wuxuu innovate gareynayaa update tariif rate kan imika ka jira maahay 40 sano lagu maamulay maahay mid kale waa inuu keenaa service cost rate waa inuu iyo sidii loo cabiriyo loo soo cabiriyo laftirkeeda uu taana uu nidaam cusub la yimaadaa iyo sidii loo enforcement gareynayay macnaha loo ganaaxayay dadkana waa qaab cusub waa inuu la yimaadaa taas marka intan waxaan u hoosgelinay qayb innovation ka soo qaybta innovation kaas ayuu focus gareynaya qaybta ku xigtay waa efficiency ga inuu kobciyo efficiency ga wuxuu kobcinayaa waxa weeyaan qaybta matalan payment procedure ka waxa jira saan hore soo sheegay e-payment iyo e-filing inuu yaka gaaro wali war ma hayo inuu qaybta ay ku soo darsadaan oo dadkana wacyigeliyaan shaqaalahana ay tababaraan qaybta kale human resource ga isla naftirkiisa tayada shaqaalaha meesha ku jira mar walba ay update gareeyaan oo ay kobciyaan ay shaqaale kale cusubna ku soo korsadaan oo ay dabagalaan scale-ka mushaarka qaadanayaan ay mar walba scale-kooda 5,000 ku ilaashiyo ninku waan meel kale ku xiran lacag ku qaadanayeen ahayn meel lacag ma qaadanayo lacagtan kaleeto aan ka siina kaleeto ku nool yahay shaqaaluhu wuxuu u baahan yahay guri uu baahan yahay wuxuu u baahan yahay house allowance uu baahan yahay wuxuu u baahan yahay transportation allowance uu baahan yahay wuxuu u baahan yahay mushaarkiisa laga kabo wuxuu u baahan yahay noloshan imika inflation ka kor ordaysa in pocket la siiyo samka maamulka magaalada Addis ay sameeyaan ticketyo iyo coupons ka siiyaan couponadaas oo mid aad bas ku raacayso iyo mid aad cuntada aad kafeega xafiiska kaga cunayso iyo inuu optimize resource utilization resource meesha yaala inuu utilize gareeyo iyo xafiisyada kale la baahda wadaagta ay focus ka saaraan xafiiskan waa xafiis dakhliga noo soo hareynaya waa inaan soo saarno waa inaan dakhliga ay dakhliga geliyaan oo ay dakhli fiican ay budget fiican ay u qabtaan waa qaybta efficiency-ga marka all in all waxaan isugu keenay performance evaluation goalka inay sameeyaan waxaan niri broaden tax base waa inay sameeyaan increase tax coverage waa inay sameeyaan consider tax rate and rates waa inay sameeyaan violate the assess tax maximum collection ratio evaluate payment procedure implement appropriate enforcement mechanism waa saddexdii shay oo soo sheegnay marka waxaan usii gudogalaynaa organizational culture-ka meesha ka jira waa maxay dhaqanka ka jira xafiiska maamulka magaalada Jijjiga waa maxay dadku maxay aaminsan yihiin xafiis ku dhisan qabyaalad right xafiis ku dhisan qabyaalad oo inta qabyaalada uu shaqeeyo oo dadka kale war uga haynin saas marka ay all in all boqolkiiba maxaa yiraahdaa 80 wax ka badan fikirka qabaan waa taa
ولكن organizational culture maxaa looga jeedaa organizational culture waxaa looga jeedaa it's a shared norm and a value practice ay wadaagaan norm ay wadaagaan taas oo influence karaya organizational interaction ka u dhaxeeya from organization to organization ama iyaka dhaxdooda ama iyaka iyo stakeholder ka u imanaya interaction kooda affect karaya shared normkaas marka shared normkaas waxa weeyaan uu factor u yahay xafiiska productivities as well as performance uu leeyahay iyo sal u yahay uu qeexga tilmaamo u yahay macnaha as well as sharci meesha guide garayn karay kaas oo customer care product quality attendance functionality iyo environmental concern iyo marka lagu cabir karaa qaybtan organizational culture marka aan dhamaano qaybtan keedo jijiga city administration waxaan ka dhex aragnay inay intan ay leeyihiin customer care bay leeyihiin product quality bay leeyihiin attendance wadu fiican yahay punctuality bay leeyihiin environmental concern bay leeyihiin ay sameeyaan in marka to assess jijiga city administration review authority organizational culture impact ay leeyihiin in la assess kareeyo waxa loo baaday inaan examine garayno socialize employee socialize iyo promote a positive work environment marka labada factor inaan examine sameeyno iyo marka ay noqotay marka aan leenahay socialization of employee waxaan uga jeednaa formal training program ma la siiyaa training ma la siiyaa mentorship may leeyihiin cultural integration course waa sidee marka mentorship training program almost intaan meesha aan joogay 2 goor hal goor baan yaa soo qaatay taas oo sanadka dhamaadkiisa ayadoo macnaha taas inkastoo ma jiraan oran karin laakiin wuu jiraan waan oran karaa mentorship waxa looga jeedaa in fiina radumay unugu dhaganugnu yihiin ku cusub imka soo galiya inay ay hore ay u baraan oo hore ay u dhaxansiiyaan oo hore u la qabadsiiyaan taana meesha waan ku arkay shaqaale fiican oo hufan oo isku xiran oo nin walba ninka kale meesha kiisa uu ka fargaraynayo oo ka cusub gacanta la qabanayo meeshana way leeyihiin cultural integration ku meesha waa sidee cultural integration ka meesha ay leeyihiin almost waxaan taabana ku arag oo laakiin jiyo ku arkay ay leeyihiin waxa weeyaan jimcaha maalka jimcaha qamiisyo la soo wada xiranaya tusbaxyaal soo wada qaadanaya waa la soo wada cadaraynaya right taas marka culture-kii dadkii meesha deganaa iyo kii wada sadaqal iyo marka leeyihiin xafiiska maamulka magaalada Jigaasa adsaabas ayna lahayn okay organizational change xafiiska musaamaray ma leeyahay marka incentive marka waxaan ogaanay ilaa maanta xafiisku wuxuu lahaan jiray revolutionary one uu lahaanayay macnaha revolutionary change rather than revolutionary change revolution isbedel mar hebel aga qaado xafiiska dhan dam mid kala imanaya kay kala markii maado structure cusub oo soo dhisanaya dib uu soo sameeynaya kaas oo kale ayaa jiray laakiin waqtigan xaadirka waa evolutionary based weeyaan kaas oo ku salaysan administration process efficiency iyo service delivery badana ayuu ku salaysan yahay marka types of change initiative commission waxa sabab oo ah process improvement technological integration iyo training and development organizational implement initiative to streamline tax and assessment procedure payment process مثلا evolutionary marka aan leenahay payment procedure kan ka saan hore idin ku soo sheegay all jiga la tirkeedu way jirtay inteen ay ku soo bixin lahaayeen tailor ba marka badana systemku platformku uu jiray inkastoo lagu soo shaqeeyay marka saas loo jaaqay payment process ka enforcement mechanism ka kaas marka process ayaa keenaya marka evolutionary change marka meesha ka jiro technological integration technology marka in waqtigan xaadirka waxa uu shaqeeyay waa technology e-filing e-payment marka technology-ga in la shaqeeyo markaasna taabo buu leeyahay meesha ay ka yimaadeen evolutionary change training and development mar walba in training and development la siiyo waxa cusub la jaan qaasiyo kaalifkiisu wuxuu kansanayaa inuu meesha uu ka yimaado
evolutionary change. Then maxaa lagu cabiraa organizational change. Organizational change maxaa lagu cabiraa laba shay weeyaan, success rate iyo driving force wax la yiraahdo jira. The success rate of these change initiatives have by right process improvement effort have shown a positive result. Marka success rate kan ilaa maanta wuxuu soo sheegay waa positive result in optimizing revenue collection. Sana kan hore usoo technical integration baa jira. The organization efficiency and customer service capability wanaagsan yahay. Training and development initiative have led to improve employee performance usage. Driving force markaan leenahay driving behind this evolutionary change including the need to adapt the change, tax regulation, technological advancement and the customer expectation. Kuwan waa driving force markaa keensanaya evolutionary change. Success rate markuu yara bato evolutionary force driving force markuu meesha uu soo yimaado maxaa imanaya markaa evolutionary change baa imanaya. xafiiskana wuu ka jiraa yani saasuu soo gabagabeeyay. Organizational transformation xafiiska wuu ka jiraa. Founding details the GST administration revenue authority was established as a government agency responsible enforce tax lawsuit. Organizational transformation kan waxa asal u ah xafiisku wuxuu uu yahay wakiil dawle in uu qaado taxiga uu enforce gareeyo sharciga uu hadana dakhliga soo ururiyo, right? Then marka organizational life stage wax la yiraahdo organization wuxuu leeyahay wuu dhashaa wuu kobcaa hadana wuu dhintaa. Organization wuu dhashaa wuu kobcaa hoos buu degaa ka bacdi wuu dhintaa. Organization wuu dhashaa marka leena graph xagga hoose ku xusan kor buu graph ku socon wuxuu gaari meel uuna inta uuna sii dhaafaynin growthkiisu uu gaar. Marka hore wuu dhalan markuu dhasho wuu kobci meel uu kobcitaankaasi ay kor u sii soconaynin buu gaari ka bacdi wuu soo laaban hoos buu soo laaban. Organization decline buu noqon decline markuu decline gaaro wuxuu gaarayaa organizational death meel oranayo marka macnaha organizational death marka leeyo or collapse organizationkaas gabi ahaanba waa la duminayaa ama magaciisa la bedelay qayb kale lagu markaynayaa ama alaabta dhan marka organizational death saas loo jeedaa. marka waxaan ogaanay xafiiska maamulka magaalada Jijia ee dakhliga waqtigan xaadirkan inuu ku sugan yahay maadaama from revolutionary to evolutionary uu soo galay waa uu kobcaya kor buu socdaa. According to the greenest models we found, the organization was at stage 4. That is a crisis of a red tape. The regional revenue office has high interface and may be resolved by a collaboration to marka kobciib ku jira aduu kobco ku jira xakan qayb baa jirta qayb kale adiga kobcaaga aan ogolayn ama shaqo kale xafiis kale ku boobayo ku soo garab gariya marka jira kaasna wuxuu noqday marka aan darsino ogaanay xafiiska dakhliga ee heer deegaan iyo marka xagan interference baa marka meesha ka jira job مثلا import exportation ee isku qabsanaya dakhliga aan kale idin kale qaybtaas maxay wax badan marka xafiisku shaqaalay oo ma filan every marka meeshii ay ka maamuli lahaayeen ama iyagu nidaamkooda ay mid walba nidaamkiisa si sax ah decentralize u sameyn lahaa iyo interference ka jira taas marka maxay keentay crisis of red tape waxa ay keentay crisis of red tape macnaha nin walba booba meesha ka jira boobkaasna waxa lagu soo galayn karaa iyakii oo collaborate ama isweeshada iyo marka caqabada ka gudbi karaan marka wali mayna gaarin qaybta declining stage it is organizational growth ku sugan yahay. Organizational conflict power and the politics oo qaybta ugu dambeysay marka soo marayna waxaan niri conflict is a natural and inevitable resource of close interaction. Conflict waa wax natural taasna interaction ka labada qof noolaha ka dhaxaysa haday isu dhow yihiin mar walba waa wujha. It can be service marka positive ama negative baa la oran karaa. Positive sidoo kale hadana waxa weeyaan waa positive force ama energy challenge sameynaya waqtiga nimka nidaamkan socdo oo ku soo kordhinaya ama nidaam cusub inuu keeno ama sameynaya in meeshu ay isbedel ka yimaado, right? Conflict ma aha marka mid si khaldan loo fikirayo. Conflict sax waa ka
in nidaamka meesha ka jira sheegaya nidaamkani waa mid khaldan marka u hurta nacam oo hordhac u noqonaya inuu nidaam cusub meesha ka yimaado ama isbedel meesha uu ka yimaado marka conflictkaas waa conflictka saxa meesha ka jira marka Jigjiga City Administration marka aan fiirinay wax aan exceptional kan meesha korka lagu xigo conflict meesha lagu xigo kuma arag it's possess some potential source of conflict meesha aan ka aragnay kaas oo authority conflict baan ku aragnay power dynamics conflict baan ku aragnay political agenda meesha laga leeyahay laftirkiisa conflict baan ku aragnay maadaama ay xafiis dawlad u yahay xafiisyaha dawladda oo dhan waxan way ka sameeyeen marka conflict see lagu xaliyaa ama potential source of conflict waa maxay sourcega marka potential marka aan saa aan guud ahaan aan u fiirino diverging goal qaar waxaa jira different department and individuals with the administration may have inay yeeshaan baa dhici kala objective goal ama priority la siinayo shayga in ay isku khilaafaan baa dhici kara kaas marka diverging goal baa la dhahaa resource allocation sida resource loo qaybinayo budgetka ama staffka ama technologiyada sida loo kala qaybinayo taasina inay conflict ku yeelan leadership dispute macnaha power kan baa mid baa loo qaadiya ka kala loo gelinaya kan marka decision making marka la sameeyo kaasina conflict waxa ka buudmi kara task interdependency معناها قف أضو أتصا قيبتا حذينتو قفك أي حدك أي صوصارتي قيبت الشرع قيبت العكس قايسة يدمك أي أوغاتو إن العكس أي يرتهي يي أران كرتا العكس كصابيريا صح لو مصو سميمين تانا مركا محاكين هي conflict measure intertask dependency in مشكلة مدى كلا values and attitudinal issue value مركا measure على صوت value اللو باهية أما attitude كمشكلة كلا the first can be impact as the financial stability and the success of a city administration. It's crucial for administration to address the mitigate these issues in order to ensure مركا value and attitudinal كاسنا حقانا واحد كلا conflict باكتير أنا ركرنا تكلم بعد source of conflict و influence of تكلم factor كلا بعد مثلا صار في influence of conflict and politics in decision making مركا political decisional making لسمينه influence ووليه conflict كان بروام حي مركا conflict in political can be significant influence on the strategy and the operational decision بدنا conflict ماشي كتير أم خلافين ماشي كتير لابو سامية تكوباد واستراتيجيك تلاوالنا وا operational decision بامريكا لورنكلا استراتيجيك decision وحلو لك إذا conflict over goal مركا goal كهدف وحفيز كولية هاي أما resource صلوا قايبين أيوه أما leadership كمركا أي خلافات وكتاغية هاي waxaan oran karnaa waa strategic decision marka wuxuu u baahan yahay strategically in la xalliyo operational decision marka loo jeedana waa power dynamics ma day to days marka xaaladaha si wax lagu qaban lahaa ama political maneuvering can influence day to day operational decisions such as process improvement technological investments marka day khilaafaadka marka waxa lagu xallin karaa anako day to day shaqooyinkeeni aan ku suureynayno performance evaluation matrix kan sameynay ku habirayno yaan ku xalin karnaa to address the conflict marka all in la xaliyay political effectiveness and ensuring that they do not hinder strategic and policy marka si oonan strategic iyo operational decision aqabad ay ugu noqonin waxyaabaha hoos ka xusan waa in la sameeyaa koobaad establish clear goal and objective oo loo dhan yahay objective iyo oo xafiisku leeyahay iyo hadafku leeyahay mid loo dhan yahay oo cad in la sameeyaa wax walba qorshaheeda ku salaysataa qorshaha guud ee meesha qorshaha guud ee meesha u yaala implement transparent decision making marka la sameeyo mar walba waa inuu noqdaa transparent oo ku salaysan communication and reduce conflict over resource allocation kind kio minimize garaniyo promote collaboration and inclusive organizational culture mar walba decision la qaadanayo
وإن inclusive لقى أو لقى قيب قليا تيو لتحكلنيا نظام كي شرعي كي حفيز كتاقن كأولي هاي تيو ليرقلينيو تاس أو كوساليسن أو dialogue la qabanayo team work la sameeyo key factor resolution mechanisms la qaadan karo training and development leadership leaders oo badanaya kamar walba qaabkan say u xalin lahaayeen training in la siiyaa iyo markaa ku haboon marka conclusionkii aakhirtaankii waxaan soo gaarnay waxaan leeyahay Jigas Administration Revenue Authorities wuxuu taagan yahay wakiil dawladda mas'uul ka yahay marka wuxuu isticmaalaa staff facility and technology input wuxuu isticmaalaa challenge face to any challenges which jiraan soo cabir lahaayeen waan sameynay saan soo dhameynay marka recommendation ba marka ka bixinay value creation model waa in soo diyaariyaan major problems and the challenge waa in meel si cad iyo board cad ay ku qortaan information ka jira waa kan سين حالنا مركا حالكي ذا كلام performance evaluation كمر والبا أي سكو ليتران سكو قرب وضان organizational culture كمشي كجري قارنا وين ديريجريان قارنا مشي قبطان organizational change أدو مشي كجري قارنا وين ديريجريان قارنا كقبطان organizational transformation كا ماشي أي كسويين وإن السفي عن أيوقع حان declining stage ما كجرنا ما inclination stage بان كجرنا وين سفي عن أيوقع قبطان ومركا ماشي problem كاس أيوحك أي سيكو حلين لهايين أي كان أي أوجادان organizational conflict وجرا وأنا كاسنا دو جرا مركا سي أيكو حلين لهايين وإن أي فلو جدي أجلان مركا جبدي وحنا أنا كسر قارئ أنا كسر حكتيسي قرار لذن ككوبات دلالنتي بوكسن يرادو the legal base of self-rule in Ethiopian city research study conducted by economists يعني كان كسر قاضي governance U program review enhancement plan guide for Ethiopian كان review enhancement plan guide review نسي لو كوبين كلا و plan guide لسوساري كان بوكان كسر قاضي Jigas City Administration Government of Ethiopia Jigas City Administration retrieved website كذا كسر قاضي Jigas City Administration كان website كذا كسر قاضي مايركا Jigas City Administration كان website كذا كسر قاضي Robble FA Right and the Fall of Revolutionary Somali Generation كان نبوكي Robble كسر قاضي واحد سيدو كلا Wikipedia Yusuf HM Assessment of Impact of Urban Expansion on the surrounding environment of Jigas bukaan kasoo qaatay waxa kale oo bugaan kale kasoo qaadan waxa u badnaa interview u badnaa xagaas maanta waxaan kaga tagayaa shirkan mid xiiso leh waxa aan dadkayga si dhiirigeliyay waxaan kaga tagay sidaay assalaamu calaykum wa rahmatullah wa aniga soo gudbinay aan jiraan abaadir from Hanuun